saaxiibayaal waqti xaadirkan qof kasta wuxuu u baahan yahay barashada kombiyuutarka markaan leeyahay qof kasta wuxuu u baahan yahay barashada kombiyuutarka micnaheedu ma aha inuu barto xirxirka iyo furfurka iyo cilad-saarka kombiyuutarka micnaheedu waxa weeye inuu yaqaano barnaamijyada basic ee khasabka tahay qof kasta inuu yaqaano barnaamijyada fara badan ee qof kasta looga baahan yahay inuu yaqaano kombiyuutarka isticmaalaya waxa kamid ah barnaamijyada loo yaqaano word processing mid kamid ah barnaamijyada word processing ugu fiican uguna tayada fiican ee loo yaqaano Microsoft Word ayaan kugula wadaagi doonaa koorsadan haddaba Microsoft Word oo loo isticmaalo qoraalada iyo waxyaabaha kala duwan maxaynu ka baran doonaa koorsadan dhexdiisa ugu horeyn waxaan ku bari doonaa sida samaysan lahayd Microsoft Word page and document cusub sidoo kale sida documentigaaga u save gareysan lahayd documentigaaga sida u format gareyn lahayd documentigaaga sida u edit gareyn lahayd wuxuu bedeli lahayd quruxdiisa iyo design-kiisa sida uga shaqeyn lahayd sida listiyo u samaysan lahayd oo ugu soo dari lahayd sida table ugu soo dari lahayd documentigaaga sida sawir ugu soo dari lahayd documentigaaga sida shapes ugu soo dari lahayd sida icons ugu soo dari lahayd sidoo kale sida smart arts ugu soo dari lahayd sida charts ugu soo dari lahayd sidoo kale sida page-kaaga watermark ugu soo dari lahayd ima cover page aad ugu samaysan lahayd buug oo kale waxaan meesha sidoo kale aan ka maqnayn sidaad password ugu xirin lahayd documentigaaga sidoo kale sidaad passwordkaaga documentigaaga uga furi lahayd haddii aan isiraahdo midmid u tiri run ahaantii ma soo koobi karayno waayo casharadu aad iyo aad u fara badan yihiin intan aan sheegay waxay ka noqonayaan qayb yar oo kamid ah ugu dambeyntii waxa hubaalo qof kasta oo qaato koorsadani inuu ka guun gaari doono barashada Microsoft Word aanu noqon doono mid ku guuleysta isticmaalka Microsoft Word magacaygu waa Ibrahim Saciid ahna macalinka koorsadan idin dhigi doona haddii eeba idin waxaan ku kulmi doonaa barashada koorsadan